runtii sharaf weyn bay noo tahay maantay inaan halkan indhaheena ku aragno habsami u socodka doorashada guddoonka ururka ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo la yiri tiro 6,800 ayaa ka qayb galayso saakay taagan doorashadan dad maaragtay murashaxiin oo dhalinyaro na way ku tartamayaan oo campaign-ka kolley soo galay arinta ugu muhiimsan oo laga baran karaa waxay tahay waa tarbiyo barbaarin way barbaarin dimuqraadiyadeed oo noo bilowmaysa way jaamacadaha waaweyn oo dawladuhu leeyihiin aniga jaamacadda Khartoum jaamacaddan ummadda 5 bilood kaliya aan ka tirsanaa markaan helay anoo 5 bilood luqadii baranaya Talyaaniga ayaa dagaaladii dhaceen kadib Suudaan baa wax ku soo bartay jaamacad 30,000 oo arday dhigato oo jaamacadda ugu weyn oo 1,800 iyo xogaagii la asaasay ayaan wax ku soo bartay jaamacaddaas waxyaalahan ka soo bartay waxa ka mid ah يعني doorashada 30,000 oo arday ay u dareerayaan sanadka oo anagu aan codeyn jirnay iyo campaign-ka iyo wacyiga ardaynimada wacyiga siyaasiga ee ardaydu siday u dhismayeen ayaa ugu muhiimsan meeshan waxyaalaha lagu baranayo la qaaliba wala maqluub qof laga guuleysanayo qof guuleysanayo ma jirto kulligeen sida aan wax u baranayno fasalka u fadhino ayaan banaankana dimuqraadiyadda uga baranayna maantay waxa weeye nin baa soo istaagi doona guuleysan doona gabar baa guuleysanaysa mid kale oo habeeno badan soo joogay oo isku haystay inuu guuleysanaya wuxuu baranayaa in maaragtay laga guuleystay halkaasna ruux dimuqraadiya halkaan inta soo istaagu leeyahay waa la guuleystay waan hambalyeynaya waa gacan ka hadal iyo qori baan wax ku qabsan karaa iyo anoo reer hebelaha meel tagi kara ayaa ku dhamaanaysa sanduuqan dimuqraadiyadana guuleysanaysa waana barbaarinta koowaad oo halkaan ka baranayno dhalinyarada marka waxaan rabnaa qofka gudoomiyaha noqda waa siyaasi inkastoo fieldiga ardaynimada uu ku jiro jaamacaddaas aan sheegayo Khartoum qof gudoomiye ka soo noqdo aan wasiir noqon ma jiro waa meesha barbaarinta siyaasadeed ay ka bilaabato way ee saxan ee dariiqa saxda waa meesha dooduhu ka bilowdaan siyaasiga waxaan rabnaa rectorkiina oo gudoomiyihiina waa joogaa in ay bishii 2 doodood oo siyaasadeed arrimaha issues-ka dalka ka jira in lagu qabto jaamacadda ummadda Soomaaliyeed hoos garayso oo ardaydu ay dhageystaan aragtiyada dalka lagu daaweynayo dhaqaale haday tahay bulshada haday tahay arrimaha issues-ka kala duwan oo dhan oo dalka yaalo dhan meeshaan in lagu barto marka hadal badan kama furna meeshaan waxa weeye waxaan practice gareynaynaa maanta oo ardaydu practice gareynayaan xuquuqdoodii codka qof walba cod buu leeyahay qofka abtirsi fiican ma leh qof reer hebelnimadiisu ay 5 cod siinaysa ma jiro muwaadiniin baa leeyahay waa loo simayaa codkaas lagu ridayaa galabtay ama caawayna natiijada lagu dhawaaqaya dalku xagee u socdaa sida wasiirku hadda uu sheegay dhalinyarada dalku wuxuu u socdaa 2026 doorasho qof iyo cod dalka waxaan ka hirgelinoo ogtihiin in national ID-ga qof kastoo Soomaaliga identity-giisa muujinayo huwiyadiisa muujinayo in la hirgeliyo xarunta meel aan fogeyn halkaan ay ku taalo oo sanadkan gudihiisa bisha Agost September ay bilowday doonto dadka in la diiwaan geliyo halkaas bilowga dimuqraadiyanteedu waa halkaas insha Allah kadibna 2026 waxa loo socdaa doorasho qof iyo cod practice-kan aan maanta sameynayno asagoo weyn oo dalka oo dhan aan sameynayna ardayda jaamacadaha ummadda Soomaaliyeed ay base u tahayna dadka voluntary-ga aan ku tashanayno marka dadka la diiwaan gelinayo ID-ga ama dadka malka dalka la dimuqraadiyeynayo dadka lagu tashan doono inay process-kaas ka qayb galaan bay noqonaysaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan u rajaynaynaa dhammaan murashaxiinta oo dhan ma kala dhaqaanin ninkii wuxuu yidhi idin kala garan mayna guulaysta dhammaan murashaxiinta oo dhan guul baan u rajaynaynaa wiilka dhalinyarada ee soo baxa iyo gabadha gudoomiye ku-xigeenka ku soo baxda maadaama gabar gudoomiye u tartamaysa aysan jirin iyagana waxaan u rajaynaynaa u offer garaynaynaa inaan wada shaqayn fiican wasaaradihii
iyo dowladdii ay la yeeshaan in halkan doodaha waaweyn oo nationalka la qabanayo aan qayb ka qaadano inaan keenno dadka siyaasiyiinta hogaamiyaasha madaxweynaha prime minister wasiirada dadka kale siyaasiyiinta inay yimaadaan inay su'aalo weydiiyaan mustaqbalkooda iyo future-kooda khuseeyo dhammaan waa kala shaqayn doonaa jaamacadda iyo guddoonka soo bixi doona waxaanan u rajaynaynaa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ah hoggaanka jaamacadaha dalka ka furan jaamacadda qaranka ku astaysan magaciisa waan u rajaynaynaa ardaydiisuna tusaale fiican inay u noqdaan ardayda kale aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa doorasho ayaan rajaynaynaa dood tiro badan meeshan kama furna sanduuqaas in tartiib nimanka codka tirinaya inay tartiibsadaan baa la rabaa oo dhiiggu isku karin maanta waxaa nin walba u soo fadhiista meeshan inuu tiriyo codka ninkii guulaysan lahaa laakiin waxaan u maleynayaa hal qof ka soo bixi doona marka u dambaysa final marka waa la isku hambalyeeynaya cadowtiniyo ma jirto sanadkan hadday ku gudubto sanada soo socota experience bay ku noqonaysaa hore uga soo qaatid waxyaalihi ku fashilantay campaign-kaadu nooc u ahaa wixii lagaaga guulaystay waxaasoo dhan waxaa la rabaa tiimka campaign-ka qof walba ku jira markii doorashadu dhammaatay in la fariistaa la rabaa oo la daraaseeyo arrintaas dimuqraadiyad halkaan ay nooga bilaabatay waana hambalyeynaynaa jaamacadda ummadda Soomaaliya waa mahadsantihiin